السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين مانتا وقميص لحية طبنكا بشكو بعد جانوري سنة كلابا كن يشان يلباتنكا مقال كانوا حرباينا ندي كل وذاقو لبا أرين أو لياب له متكلنا وادقنين oo ah hadii caruurtaadu ay isticmaalaan waxyaabaha color-kan la mariyo nanac iyo waxyaabahaas ay ku jiraan haddaba ka jooji waxa laga cabsi qabaa in cancer ay caruurta ama dadkaba ay ku ridaan waxyaabaha hay'adda FDA-da ay ka digayso aan ku bilaabo labada arin oo la yaab kale waxay tahay maalmahan waxaan ogeyn ninkii Trump aha markii la doortay inuu dhahayay gobolka wadanka Canada ha noqdo gobolka konton koobaad Greenland ayaa iibsanaya kanaalka Panama ayaa dib u soo wareegaya gacanka Mexico ayaa waxaan ka dhigayaa gacanka Mareykanka waxyaabaha soo idil waan ogeey laakiin hadda laba gobol oo Republican ah ayaa waxa ay laba gobol oo dimuqraadi ah ay ka doonayaan in degmooyin ay ka qaataan arintaas waxay tahay arin la yaab leh barnaamijka la socodsiyo arintan maxay tahay gobolka Iowa waxay xuduud leeyihiin gobolka Minnesota haddaba senator ka tirsan sanadka gobolka Iowa ayaa waxa uu leeyahay 9 degmo ayaan waxaan doonaynaa inaan gobolka Minnesota ka soo iibsano oo aan ku soo darno gobolka Iowa senatorkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Michael Buslow waxana uu bartiisa Twitter oo hadda X loo yaqaan uu ku soo qoray in ay doonayaan in dadka cusub ee reer Iowa ay ku soo wareejiyaan ama ay noqdaan ay dadka degan gobolka Iowa inay ka dhigaan dadkaas Minnesota deganaan jiray sida darteed waxa uu yiri waxay heli doonaan lower income-kooda lacagaha saliska iyo iibka iyo waliba businesska iyo canshuuraha iyo waxyaabahaas in hoos looga dhigi doono gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa waxa laga yaabaa inuu yiraahdo ayuu yiri gobolka Iowa waxa uu yahay dhagxaan iyo sidoo kale lo oo kaliya ayaa joogta laakiin waxa uu sheegay intaasi fursado ka badan ayaa ka jira gobolka Iowa haddaba senatorkan waxa uu leeyahay 9 degmo oo ka tirsan gobolka Minnesota oo dhinaca xuduudda labada gobol ee Iowa iyo Minnesota ku yaala gaar ahaan xuduudda koonfureed ayaa waxaan doonaynaa inaan ku soo beerino ayuu yiri oo aan ka iibsano gobolka Minnesota oo Iowa aan ku soo beerino haddaba degmooyinkaasi maxay kala yihiin marka degmooyinkaasi waxa ay kala yihiin degmooyinka la kala yiraahdo Rock Nobles, Jackson, Martin, Faribault, Freeborn, Mower, Fillmore iyo Houston sagaalkaasi degmo ay kala yihiin gobolka Minnesota hadda degmooyinkiisu waa 87 marka haddii 9 laga qaato 78 ayaa u soo haraysa Iowa degmooyinkiisu waa 99 haddii 9 ku darsadaan 108 ayay noqonaysaa marka sidaasi ayay doonayaan waxa sidoo kale senatorkan uu leeyahay degmooyinkan markii hore waxay ka tirsanaan jireen gobolka Iowa intii uusan gobol noqon oo territory ahaa sidoo kalena ilaa 180,000 oo qof ayaa sagaalkaasi degmo ku nool waxa sidoo kale senatorkan uu leeyahay haddii aan sagaalkaasi degmo iibsano waxba kama bedelayso yiri tirada xubnaha laga soo doorto ama gobol ahaan ama sidoo kale Congress-ka federaalka laga soo doorto ama electoral college-ka waxba arintaasi kama bedelayso electoral college-ka Minnesota 10 ay leedahay Iowa 6 ay leedahay marka waxba kama bedelaysa ayuu leeyahay marka laakiin qodobka afraad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay gobol cusub lama sameyn karo iyadoo ogolaansho aan laga helin baarlamaanka gobolkaasi ama sidoo kalena Congress-ka lama iibsan karo ay leeyihiin sidaas darteed hadda wuxuu leeyahay senatorkan sharciyaan diyaarinaya sharcigaasi marka hore waa in ay meel mariyaan baarlamaanka gobolka Iowa kadibna gudoomiyaha gobolka uu saxiixo markaas kadib Congress-ka ayaa loo gudbin doonaa hadii ay Minnesota ogoshahay waa Congress-ka ayaana soo ansixin doona dhinaca kale gobolkan Indiana aan ku noolahay ayaa iyaguna waxay 33 degmo ay ka doonayaan gobolka la yiraahdo Illinois oo dimuqraadi ah labada gobol oo degmooyinka cusub doonaysa labada gobol waa Republican waa Iowa iyo Indiana gobolada ay degmooyinka ka doonayaan waa Minnesota iyo Illinois oo labaduba dimuqraadi ah marka laba Republican ayaa doonaya degmooyinka inay badsadaan hadda marka gobolka Indiana waxa uu leeyahay 33 degmo ayaan ka doonaynaa gobolkaasi Illinois oo ku yaala inta badan dhinaca koonfureed iyo bartamaha isla markaana ku teedsan xuduudda Illinois iyo ay wadaagaan gobolka Indiana marka mar hadii la eego hadda gobolka Illinois waa 102 degmo 33 hadii laga qaato
69 usoo harayso. Indiana waa 92 degmo haddii 33 ay ku darsadaan 125 ayay noqonayaan. Arrintan arrin yar maan xitaa afhayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Indiana oo Republican oo la yiraahdo Todd Huston ayaa hadda waxa uu diyaariyay sharci nambarkiisu yahay 10/8. sharcigaas wuxuu leeyahay wuxuu aasaasaya guddi go'aan ka gaari doona in dib loo calaamadeeyo xuduudda ay wadaagaan labada gobol ee Indiana iyo Illinois isla markaana degmooyinkaasi loogu soo daro 33 ah gobolka Indiana. degmooyinkan hadda 33 todoba ka mid ah doorashadii November ayuu waxa ay doonayeenba inay ka go'aan gobolka Illinois oo waxay leeyihiin canshuurtiisu sareyso iyo sidoo kalena ma rabna inaan ka sii mid ahaano. degmooyinkaasi todobada ah ee hadda codeeyay doorashadii u dambeysay inay ka go'aan gobolka waxa ka mid ah degmooyinka kale ah Calhoun, Clinton, Greene, Jersey, Madison iyo weliba Berry. 33 degmo olole ayay wadeen ay doonayeen sanadihii ugu dambeeyay inay ka go'aan gobolka Illinois. waxaana sidoo kale ay sameysteen waxaan doonaynaa ay yiraahdeen gobolka 51 ee Mareykanka inaan noqono oo New Illinois ayaa la yiraahdaa. waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan ka go'no gobolka Illinois inaga oo aan ka guurin oo weli gobolkaasi degan. marka waa arrin la yaab leh oo hadda gobolkan uu leeyahay Indiana waxaan doonaynaa 33 degmo inaan kala soo wareegno gobolka Illinois. marka afhayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Indiana oo Republican waxa uu leeyahay intii ay gobolka 51 ay noqon lahaayeen annaga hanagu soo biiraan annaga diyaar u ah gobolka Indiana ha ku soo biiraan sidaas darteed ayay nooga mid noqonayaan. waxa sidoo kale hadda jirta in arrintaasina gobolka Indiana uu ka doonayo 33 degmo inay ku soo biiraan gobolka Indiana oo guddi ayaaba loo saaray oo sharci ayaaba la soo diyaariyay halka dhinaca Iowa sharcigaasi la diyaarinayo. laakiin sidaan ii sheegay qodobka afraad ee dastuurka waxa uu dhigayaa gobol cusub lama sameyn karo iyadoo sidoo kalena arrintaasi aysan ogolaanin baarlamaanka gobolka kadibna Congress-ka uusan ansixinin. sidoo kalena waxa jirta gudoomiyaha gobolka Illinois sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Illinois JB Pritzker ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay arrintaasi mid aan laga wada hadli karin in degmooyin ay ka go'aan oo la kala gooyo gobolka oo qaarkood ay ku biiraan gobol kale. waxaana uu sheegay arrintaasi inay tahay mid aan weligeed dhacaynin. waan arki doonaa arrimahaasi Iowa iyo Indiana ay degmooyinku uga doonayaan labada gobol ee Minnesota iyo Illinois haddii arrintaasina ay suura gasho. arrintan waa digniin gaar ahaan waalidiinta dadka waaweynna waa ay quseynaysaa. hay'adda FDA da oo kontrolsho cuntooyinka wadanka soo galaya iyo daawooyinka ayaa shalay waxay soo saartay digniin gabi ahaanba waxay mamnuucday midabka kalarka cas ama gaduudka ee red dye number 3 la yiraahdo kaasi oo inta badan lagu daro cabitaanada nanaca la mariyo sidoo kalena cuntooyinka qaarkood daawooyinkan ay ku jiraan sida sharoobooyinka iyo kaniiniyaasha qaarkood. marka haddii ay guriga ku yaalaan wax kalar gaduudan la soo mariyay oo red dye number 3 ay ku qoran tahay fadlan iska tuur gaar ahaan nanaca noocan gamiska la yiraahdo ee caruurta la siiyo gaar ahaan kuwa gaduudka ama casaanka ah caruurtaada mar dambe ha siinin. FDA waxay leedahay waxaa laga cabsi qabaa in kansar laga qaado. waxaa lagu tijaabiyay xayawaanka gaar ahaan dooliga kadibna waxaa la sheegay inuu kansar ka qaaday. sidaa darteed FDA waxay tiri wax kasta oo khatar u keeni kara bini'aadamka ama xayawaanka waa in la mamnuuca. dhaqaatiirta u ololeysa dhinaca badqabka cuntada ayaa arrintan dacwad ka gudbiyay sanadkii 2022 marka hadda hay'adda FDA waxay leedahay red dye number 3 wax kasta oo la mariyo sida cake oo kale waa ku jira haddaad aragtaan cake oo kalar gaduudan leh cabitaanada qaarkood nanaca daawooyinka sharoobooyinka kuwa qufaca dhammaanba waa la mamnuucay. waxaana dowladda Mareykanka ay siisay kambaniyada soo saara cuntada in ugu dambeyn bisha January sanadka 2027 aysan cuntooyinkooda ku soo darin red dye number 3. daawooyinka shirkadaha soo saarana waxaa la siiyay ilaa iyo January sanadka 2028. waxaa la yaab leh in waxyaabaha la isku qurxiyo laga saaray red dye number 3 sanadkii 1990 wadamada Yurubna waa laga mamnuucay leh. marka sababta hadda xilligan looga mamnuucayo cuntooyinka iyo daawooyinka waa arrin la yaab leh iyadoo 1990 Mareykanku uu ka mamnuucay waxyaabaha la isku qurxiyo red dye number 3 gaasi oo waxyaabaha kalarka ee la mariyo
cuntooyinka daawooyinka jalaatada sidoo kale waa ay ku jirtaa haddii marka caruurtaada waxyaabahaasi kalarka gaduudan la mariyay iska akhri waxaa ku qoran haddii red dye number 3 aad ku aragto fadlan adiguna ha isticmaalin caruurtaadana ha siinin haddii hadda fridge ay kugu jiraana sidoo kale iska tuur aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo